بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواذا عشر كاني هل دقيقة تربية تعليم. ما أنت وحن كسو قادنا شروط الصلاة. صلاة فرض كاه أنتو كنا مالي والبا سيدا صلاة الصبح ظهر عصر مغرب عشاء. شروط وحال لها شيء أن لسمين كرين شيء مركزي للدوني أن لسمايو إلا لهلو. سؤال قول هذا دوني سوعد باهنتاي بوس شرعييسن oo aad ku dhisato ileen hawada kuma dhisi kartid gurigaasi. Marka shuruudaha salaada waxaa ka mid ah shardiga koowaad in uu waqtigii galo, macnaha waqtiga salaada in la gaaro. Haddii waqtiga salaada haddaan la gaarin ila salaadii waqti bay leedahay la galo, haddaana waqtigaasi la gaarin hadda iskama tukan kartid. shardiga labaad waxa weeyaan alcilmu bihi, inaad og tahay in waqtigii la gaaray. macnaha haddaadan ogeyn oo aad un iska tukato waqtigii salaadan ay ahayd laakiin aadan ogeyn inuu waqtigii galay, haddee lama aqbalayo salaadii. marka waa inuu waqtigii galaa kow, waqtigii salaada waa in la gaaraa. hadday casar ahayd waa in waqtigii casar la gaaraa, maqrib hadduu ahaa waa in waqtigiisi la gaaraa. adigana waa inaad og tahay ama qofka tukanayo waa inuu og yahay in salaadii waqtigeedii la gaaray. دليل كان واكنا قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة وحا لواجبي دادك المؤمنين كادو الشوضة حلي عيما ولا يقانا. الشرط يصدحات الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، معناها قفك حدث الأصغر يا حدث معناها أكبر لبضبا وإنه كظاهر يعني حدث الأصغر وحال لها سيدا نجاسة أو كلا سحرة يكذا. أكبر كانوا جنابة، مركا قفك هادو جنابة قوي وإنه قبيستي وطاهر يعني ويسنا وإنه قبا ومعناها مركاسي معناها معناها ونظافة ديس ومعناها جيركيس وطاهر يعني، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ضدك إلهي النبي رميو إذا قمتم مركزوا يستاغيسان إلى الصلاة فاغسلوا رق وجوهكم وجيهدين وأيديكم كعمهن إلى المرافق إلى لقار السحلة أما تقلة، وامسحوا مسح برؤوسكم مدحيدين وأرجلكم كعمهن الوهن رق إلى الكعبين إلى لقار كعبين كما ماشى لدون ككورة لغة. وإن كنتم جنوبا هداتين ضد جنابة قبا فطهروا مركاسي طهارقات أو استهراء. ayadaasi ayaa loo daliishanayaa in qofka uu markaasi sidaasi isu daahiriyo oo xadathul asqarka iyo xadathul macnaha akbarka labadaba uu ka daahiriyay, macnaha saxarada iyo kaadida iyo macnaha janaabada labadaasba uu ka daahiriyay. shardiga saddexaad ee salaada waxa weeyaan ka hor laga doonayo qofka badankiisa iyo jirkiisa inuu daahir yahay. macnaha qofku waxaa dhici karta in jirkaaga meel kamid ah ay wax soo gaaraan baa dhici karto, marka jirkaaga waa inuu daahir yahay. daliilkana waxa weeyaan qowlkii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri wuxuu soo maray laba qabri uu soo maray nabiga sallallahu alayhi wasallam cindama marra ala qabrayn, laba qabri uu soo maray markaas wuxuu yiri yucadhabaani wama yucadhabaani wala cadaaba yaa yiri labada qof ee qabrigan ku jiro. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa dhahay wama yucadhabaani loo mana cadaabayo fi kabiirin wax weyn. ثم قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. لبضن إن قبرين كجرة ولا عذابيا وحوين لو ما عذابيو مت كمذا كهذا اسكمون توسين جرين أو اسكمون هجاجين جرين جركي سمعنا كمون دور جرين ككلنا وحوها قف الصعدة اسكو دركا dadka walaalaha ah ayuu isku diri jiray oo xan iyo isku dir iyo namiima iyo waxaas ka shaqeyn jiray. marka qofku uu dadka isku dirayo oo xanta ama labada qof uu kala warqaadayo wax weyn uma arko, laakiin waa arrin weyn oo cadaab lagu mutaysan karo. sidoo kale qofku inuu iska ilaaliyo kaadida macnaha si aad iskaga dhowrana taasna iyadana wax adag ma aha, laakiin haddii qofkii fududeysto macnaha way u fududaanaysaa, waana waxyaabaha waxay kamid tahay lagu cadaab mutaysto. nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay marka arrin khatar ah. marka halkaas ama xadiiskaasna waxaan ka qaadanay tahaarada badanka qofka jirkiisa inuu markaasi uu macnaha daahir yahay.
shardiga shanaad waxa weeyaan tahaaratu thiyaab, macnaha dharka aad xiran tahay inuu daahir yahay. macnaha qofka dharkiisa inuu daahir yahay daliilkeedana waxa weeyaan wathiyaabaka fatahir. qaala tacaala wathiyaabaka fatahir. nabi maxamedow qum fa andir markii la dhahay yaa ayuha almudathir qum fa andir wathiyaabaka fatahir, macnaha in uu nabiga sal alla alayhi wasalam waxaa lagu amray dharkiisa markaasi u dahiro, ee annagana waa nala amrayaa. halkaasaan ka qaadanaynaa marka jirkii iyo dharkii inay daahir yihiin. xadathul asqarkii oo ah kaadidii iyo saxaradii inuu qofka uu iska nadiifiyey, inuu sameeyey qabays hadduu janaabo qabay, waqtigii inuu galay, inuu og yahay qofka in waqtigii galay. intaasoo dhan baan hadda soo baranay. shardiga lixaad waxa weeyaan almakaan, macnaha tahaaratulmakaan, meesha aad ku tukanayso inay daahir tahay. salliga aad ku tukanayso, amaba meesha ciidda dhulka ama dhagaxa ama meesha markaasi aad ku tukanayso ee sibirka hadday doonto ama waxay doontaa noqoto, ama hadba meesha aad ku tukanayso oo markaasi duruufta ay ku saamaxdo inay tahay meel nadiif ah oo daahir ah inay tahay. wadalika liqowlihi tacaala wacahidnaa ilaa ibraahiima wa ismaaciila, waxaan kula ballanay nabiyullahi ibraahim nabiyullahi ismaaciil an tahiraa inay tahiraan ama nadiifiyaan beytiya gurigayga oo ah kacbada litaa'ifiina dadka markaasi tawaafaya iyo walcaakifiina kuwa ku nagaanaya ee dhex fadhiya ee ku ictikaafaya ee ilaahay ku caabudaya iyo warukaci sujuudi iyo kuwa tukanaya inay u dahiraan. sidaas darteed makaanka aad ku tukanayso ama meesha aad ku sujuudayso ama aad ku taagan tahay waa inay daahir tahay. daahirnimada waxaa soo galaysa inay yihiin xalaal keliya, nijaaso keliya lagama hadlayo. meesha inay tahay meel adiga aad leedahay oo aad macnaha xalaal ahood oo kuu banaan inaad ku tukato, ama adiga aad leedahay inay tahay. haddaad ka waran ku tukanayso meel qof wuxuu dad leeyahay aad kasoo dhacday, dhar macnaha dad aad kasoo xaday ama aad kasoo xoogtay, ama haddaad ku tukanayso amaba aad ku tukanayso guri aad qofka ka xoogtay amaba aad ka dhacday, marka waxaasoo dhan waxay ka baxayaan dahaaranimada ay ka baxayaan. marka saa insha allahu tacaala satrul cawrati baa meesha soo gelaysa marka haddana oo tiirka macnaha toddobaad ah, waxaan ka wadaa shardiga toddobaad ah satrul cawrati, cawrada in la asturto. cawrada ninka ragga ah waxa weeyaan laga bilaabo xudunta ilaa jilbaha, labada jilbood ama labada low, xudunta ama buufka ilaa labada jilbood ama labada low. macnaha markaan sidaa leenahay lama laleeyahay waxaa loogu talagalay qofka intaas hadduu ku joojiyo dharka markuu xiranayo, hadda markuu rukuuco ama sujuudo way feedmi karaan sooma. haddaad qaadato macawis yar oo xudunta aad ku xirato macawistaas yar halka hoosena ay jilbaha ku joogto oo aad salaadii gasho macnaha qof ragaa tahay kasoo qaad, hadii markaad rukuucdo maxaa dhacaya ama aad sujuuddo macnaha way feedmaysaa, wax way soo duumayaan moogtahay. marka waxaa la rabaa inuu qofkii ku talagalo hadduu si walba macnaha uu markuu sujuudayo markuu soo toosayo iyo waxaasoo dhan waa inayna wix soo dhaafin xudunta iyo macnaha jilbaha waa inaan soo dhaafin. taa macnaheed waxay ka dhigan tahay marka horeba inaadan hadee aada u dhawaanin xuduudda. xadiiska nabiga sal allahu alayhi wasalam qofkii macnaha xuduudda ku wareegeysta laabudda an yaqac, macnaha waa una ku dhacaa marka dambe. ka raaci xawla alxima, saas soo ma. marka xuduudda ka foga marka horeba qofka inuu ka fogaado si wanaagsan isu asturo ayaa insha allahu tacaala waajib ah ama wanaagsan. marka ragga waa kaas weeyaan, laakiin dumarka ama cawratu lmarati fa jamiicu badaniha ila alwajhi walkafayni, macnaha qofka dumarka waa inuu jirkiisa oo dhan asturaa marka laga reebo inta wejiga ay dhulka ay saarayso iyo gacmaha ay dhulka macnaha ku sujuudayso, ilan xibnihii laga sujuudayay baa wejigii iyo gacmihii kamid ah. marka intaa marka laga reebo jirkeeda inta kale waa inay asturan yihiin. asturaadda waxaa kamid ah in dhar un aad xirata maahe, dharka waa inuu yahay dharku asturayo, waa inuu yahay oo macnaha adag oo aan laga arkaynin jirkaaga aan laga dhex arkaynin. number 2 inuusan ahayn dhar kugu dhegan oo markaasi adeeg haba adkaad hadduu doono, laakiin hadduu kugu dhegan yahay macno badan oo sameynayo. marka waa inuu yahay dhar kaa fog oo adiga aan kugu dheganayna kaa weyn. kow number 1 waa inuu yahay dhar adag oo markaasi jirkaaga aan laga dhex arkaynin oo isha ay ka dhex dusayninna waa inuu yahay. marka haddaad madax iyo minji iska duubto laakiin dharkii uu yahay wax kugu dhegan amaba wax ku sawirayo uu yahay amaba wax lagaa dhex arkayo oo aada khafiif oo uu yahay macno badan oo sameynayo lama dhihi karo markaasi asturaad. istiqbaalu lqiblati, shardiga sideedaad in qofku uu jahaysto qiblada inuu jahaysto qofku waxay kamid tahay shuruuda salaada. qaala tacaala qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaaءi falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawali wajhaka shatra almasjid alxaraam xayثuma kuntum fawaluu wujuhakum shatrah.
nabiga sal allahu alayhi wasalam beri hore wuxuu u tukan jiray baytulmaqdis sidaan wada ognahay, marka aayadana soo degtay isagana wuxuu jeclaa kacbada inuu xaggeeda u tukado, aad buu u jeclaa. oo marar badan waxaa la yidhi wuxuu sameyn jiray intuu kacbada dhinacaasi ka maro buu marka baytulmaqdis xaggeeda markay ka marto kacbada ayuu u tukan jiray si uu kacbada iyo isu waafajiyo baytulmaqdis. marka ilaahay baa aayadan kusoo dejiyey, waxyiibuu sugi jiray oo ilaahay xaggiisa aga imaado, ilahay buu baryi jiray. marka waxaa la yidhi falanuwaliyanaka qad naraa taqaluba wajhika fi samaa, waxaan ku aragnay inaad samada mar walba dhowreyso oo aad waxyi sugayso oo ilaahay baryayso oo jeceshahay in macnaha kacbada xaggeeda aad u tukato. falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha, qiblo aad jeceshahay ood ka raali tahay nafsadaada ay jeceshahan kugu weecinayna. fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraami, wejigaaga u leexi baa la yiri oo ka leexo baytulmaqdis oo ujeedi kacbada xaggeeda. waxaythumaa kuntum, idinkana muslimiinta meel kastoo dunida ka joogtaan, fawallu wujuhakum shatra, xagga kacbada ujeediya wejigiina. ilaa macnaha kacbada in loo jeesto waxaa weeyaan waajib waay, ilaa fi xaalaad mucayan, xaalado mucayan ah oo la yaqaano oo markaasi istithna ah oo adag, oo markaasi sida in dagaal lagu jiro oo kale jihaada, ilan islaamka ma gelayo dagaal, khalad maba galaba, maba banaanaba inuu galo. marka in lagu jiro amaba ay xaalado adag jiraan markaas oo ku saamixi waayo ma ogiye. insha allahu tacaala salaadan aan ka hadlayna waa salaadihii faradka hala socda, shuruudan aan sheegayna waa salaada faradka ah oo keliya. marka sunada waxbay ka duwanaan kartaa, sunada qofka hadduu doono taagnig kuma tukanayo, isagoo wuxuu tukan karaa fadhiyo tukan karaa, marka ma aha, isku mid ma aha. okay, markas shardiga sagaalaad niyo in la helo, macnaha qofka inuu niyeysto inuu salaad tukanayo duhur ah, hadday duhur tahay, hadday casar tahay, hadday maqrib tahay, inuu salaada niyeysto ka hor inta uuna xiranin. markuu qiblada u jeheysto oo inta aan soo sheegno dhan uu soo sameeyo qofka oo shuruudahaas oo dhan uu soo buuxiyo, waxaa laga rabaa inuu niyeysto qofka inuu salaad tukanayo duhur. khasab ma aha inuu macnaha kor ugu dhawaaqo, khasab ma aha, manaba u baahnaba. marka waa inuu niyeysta, hadduuna niyeysanin qofka salaada uu iska galo oo markuu salaadii galo kadib allahu akbar intuu dhahay kadib uu markaasi dib u fikiro maxay tukanaysaa maqrib mise cisha, amaba waxaad gadaal kasoo gaartay dad salaad tukanayo, markaasaad allahu akbar si deg deg aad u tiri, markaasaad salaadii gashay kadib baad yaa tiri maxay tukanayaan maqrib mise cisha, camal saas oo kale, waxaas salaad ma aha, wax laga aqbalayana ma aha, waxbana kama jiraan. marka intaadan salaada gelin ka hor waa inaad niyadda ku qabatay ama aad og tahay salaada aad tukanayso, dee ogaanshihiibaba kamid ah sooma, waa inaad niyeysataa marka inaad salaad tukanayso. wadalika liqowli sala allahu alayhi wasalam, qowlkii nabiga sal allahu alayhi wasalam uu yiri inama alacmaalu binniyaat, acmaasha waxaa un lagu aqbalaa ama ay ictibaar ku yeeshaan iyo qiimo ku yeeshaan niyada. wahiya alcazmu cala alcibaadati, waa in qofku uu go-aansado cibaado ilaahay dartiis uu u sameynayo. salaadana ma ansaxayso iyada la-aanteeda, mana dhacayso biayi xaal. macnaha niyada mar kasta qofka hadduu xataa jihaad ku jiro oo xabad ku socoto amaba sayf ay ku socoto amaba xaalad kasta qofku ku sugan yahay, waa wuxuu awoodo, waa wax qalbiga moogtahay. marka afcaasha kale la sameeyo salaada marka la tukanayo waa laga yaabaa qofka in laga cafiyo, laakiin niyada mar kasta waa khasab inuu la yimaado. niyadana waxaa la dhahaa qasdu shay muqtarinan bificlihi, macnaha niyada waxyaaba lasoo mala awaalay waxaas way ka duwan tahay. waxaa la dhahaa niyo qofka inuu shay u qasto kadibna uu la xiriiriyo ficilkii ama falkii uu la xiriiriyo. macnaha inaad niyeysato salaad inaad tukanayso, go-aansato duhur inay tahay salaadaasi ama casar ama maqrib, markaa salaada aad joogto allahu akbar aad tiraahdo, shaqadiiba markaasi guda gasho. asxaabay marka halkaas ayaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala. arkaanta salaadana waa baran doonaa, arkaanta waa tiirarka. hadda waxaan nidhi shuruudda salaada waxaan ku sheegnay inay tahay booski, markaad guri doonayso booska aad ku dhisan laheyd oo sharci ah inaad hesho, ilan hawada kuma dhisi kartid. arkaantana waan arki doonaa insha allahu tacaala, waxay kamid tahay dhismihii, macnaha tiirarkii la sursurayey iyo qalabkii iyo wixii haddaadan haysan guriga ma dhismaayo. marka waa tiirarki weeyaan, arkaan macnaha waa tiir soomaali. marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. jimco wanaagsan, caafimaad baan idin rajeynaya insha allahu tacaala, meel kastoo duniyada ka joogtaan. soo duceeya insha allahu tacaala, ilaahay u naxariisto waalidiinteena iyo waalidiinteennaba dhammaan.